الله وبركاته marka hore aad baan isoo dhaweynaya dhamaantiin dadka ku jira groupka halkana waxaan isku imanay waxa weeye inaan kala qaadano macluumaad inoo sahlaya sababtii halkan u timaadeen ama ganacsiga la nii sheegay ee diyaarkan la nahay inaan isino macluumaadkiisa marka waxaan caaw halkan u joognaa waxa weeye inaan ogaano bal ganacsigan la nii sheegay qaabka uu shaqeynayo iyo fursadda ganacsiga taala waxa ay tahay sida hore soo maqasheen ganacsigan aan ka shaqeyno anaku waxa la dhahaa network marketing bal runtii waa ganacsi adduunka oo dhan ka hawlgala marka shirkaddan waa shirkad kamid ah maxaan ku raday shirkadaha qaabkaas u shaqeeya ama network marketing ku shaqeeya taasoo insha Allah warbixintooda qaadan doona saad ku arkaysaan slide-kana waxaan haynaa profit sharing opportunity fursad waxaan haynaa maxaan ku raday ganacsi baan haynaa oo rabnaa inaan la wadaagno ama aan share garanayo diyaar u nahay insha Allah hadaba anigu dan skin baro magacayga waxa la dhahaa Miizaan Daahir Maxamuud shirkaddan xubin ka ahay waxaan ka shaqeynaa shirkaddan muddo gaadhaysa 4 sano iyo badh 4 sano barka runtii waxaan ka helay experience badan khibrad badan baan ka helay faa'iidooyin badan ha noqoto mid dhaqaale ha noqoto mid caafimaad iyo ha noqoto mid dalxiis iyo ha noqoto mid cash iyo kind labadaba waan ka ajiif garay runtii anigu waxbarashada waxaan haystaa first degree ama bachelor waxaan haystaa degree therefore insha Allah waxaan isleegi doonaa oo ni si faafahin doonaa qaabka aad shirkaddan la shaqeyn lahaydeen ama ganacsigan aad la shaqeyn lahaydeen inkoo jooga meesha aad joogtaan ku xisaabtama ganacsigan waxa la shaqeyn karaa part time iyo full time labadaba qofku isagoo waqti faraaqan uu shaqeyn karaa waqtigiisu buuxana labadaba insha Allah waa shaqeyn karaa marka taas insha Allah si wadi doonaa aad baad u mahadsantihiin waxaan leeyahay dhageysi wanaagsan ayaan leeyahay haddaba u guda galno maxaan ku raawar faafintii intaan galin ka hor waxaan ay doonaa insha Allah dhowr su'aalood oo ku ah dadka caqabad what are the top problems of life haddaan isku weydiino top problemka ama dhibaatooyinka inoogu badan nolosheena haysta waxay yihiin kuwan soo socda bal isweydiiyo maxay yihiin caqabadaha haysta noloshaada maxay yihiin caqabadaha ku haysta adiga eed maanta ka cabsanaysa maxay yihiin if you solve a big problemka haddaan xalino dhibaatooyinka u waaweyn in haysta innaka you have a big business waxaad helaysaa ganacsi wanaagsan baad helaysaa ganacsi weyn baad helaysaa haddaad xaliso dhibaatooyinka waaweyn ganacsi wanaagsan baad helaysaa waxyaalaha dhibaatada nagu ah waxa kamid ah unemployment shaqo la'aanta kamid ah oo where did the job go halkee tagtay shaqadii shaqo la'aan baa jirtay adduunkani shaqadii halkee bay tagtayo ayaa shaqadii qaatay waa su'aal isweydiin karo shaqadii halkee tagtay dadku badan waxay isweydiinayaan qarnigan maanta ku jirna 21 century-ga la dhaho 21 century-ga waxa loo yaqaan qarnigii shaqo burburka waxa loo yaqaan qarnigii bankruptcy-ga waxa loo yaqaan qarnigii jobless-ka shaqo la'aanta loo yaqaan therefore halkeetid shaqadii ta kale waxa weey talabaad poverty-ga saboolnimada waxyaalaha cabsida nagu haya kamid tahay saboolnimadu oo waxyaalahan ka cabsoono maanta anaga waxa kamid ah employment san soo sheegnay iyo shaqo la'aanta saboolnimada what can I do to solve my financial problems maxaan sameeyaa si aan uga baxo saboolnimada gaajada si aan uga tago maxaan sameeyaa qodobka saddexaad waxa weeyaan disease cudurka weeye how can I prevent myself and from my family chronic disease sidee baan uga hortagaa dhibaatooyinka caafimaad darrada ee haysta aniga iyo nafteeda iyo nafta qoyskayga iyo family-ga sideen uga hortagaa maxaan ku radaa xanuunada saddexdaas su'aalood waa su'aalaha in haysta annaka ee dhibka inoogu weyna haddaan kuwan xalinana waxaan haysanaa big business ban haysanaa